marka heshiiskaas kuugu tixgelinayaa ka duwan kii meesha u yaalay صح taas waa mid سيفي عن سؤال شكله su-aasha kale aan qabaa waxa weeye lacagta waxa lagu bixinayaa baa tiri fiidiyoyada wax ka mid ah card baa lagu bixinayaa baa tiri اها laakiin baad raacisay intaan lacagta kaadhka lagu bixin waxbaa ka yar horeeya waxaa hal fiidiyo baan idinka soo dhigi doonaa baad tiri fiidiyoga weli aanu lama kulmin سيفي عن سؤال شكله su-aasha saddexaad waxa weeye sambal orderka sida uu qofku u dalbanayo sambal orderkii kambaniyada qaar baa leh qaarna oo meel uu kuu soo dhigaya inaad sambal order aad order garayso qaarna kuma soo dhigayaba اها inaad iyagii luuqa kala hadashay noqonaysaa سيفي عن marka qofku taana u taray garaynayo sambalka uu dalbayo اوكي انت السؤال شاد وانت may su-aasha afraad baa yaadhay اوكي lacagta dulsaarka ah waxaa jiray markaad ka hadlaysay processing payment processka markaad ka hadlaysay اها kiisa labaad weliba waxa alaab waxa jirtay product aad ku iibsatay $45 اها $50 lagu saaray oo aad lahayd lacagtaa dood baa ka qabaa annaga sidoo kale lacagtaasi wayna qabatay sidee lacagtaas loo suulin karaa meesha looga saari karaa سيفي عن oo ta dhabta aad uga fadhiisanaysaa وان قرتي سؤال كلام اكو هرده haa su-aasha shanaad اها waxaa tiri laba adres baan idin siin doonaa oo idiin suuro gelinaya in alaabtu idiin timaado سيفي عن labada adresna ma kulmin fursadaha walaalahay baan uga baxayaa shantaasaan anu si fiican igu qabo ku odhan lahaa اوكي magacaaga ii sheeg muxiidiin maxamed muxudiin maxamed halkee joogtaa muxudiino ya halkeed joogtaa oo kooraska ka qaadataa anigoo hargeysaan jooga muxudiin aad aa umahadsan tahay inaad kooraska hargeysa kasoo gashid oo ardaydeena ka mid tahay ka waran kooraska intaa qaadanaysay yani systemka kooraska nidaamka casharada u bixinayno wallaahi kooraska nidaamka casharada loo bixinayo anu markaan qiimeeyey waa nidaam aad u wacan si fudud qof ay wax u baxsan yihiin aqoonta wax u baxsan yihiin iyo qof bilow iba uu fahmi karo labadaba uu fahmi maxaa la dhahaa muxudiin aad aa umahadsan tahay su-aashaada koowaad waxay ahayd tusaale hadda shaashadda waa ujeedaa umaleynaa waan u jeedaa click price baad ayaad marka koowaad qortay maya yani waxyaabahaas waxaa la dhahaa click price waxay kusoo jiidanayaan qofka oo macmiilka tusaale hadda haddii ani accountkayga oo realka furo yani waxaa arkaysaa yani alaabo oo qofka aa kula soo heshiisay marka shaashada ka arkaysa $2 camal ama $1 aa ku aragtay ama sentiyaal aa ku aragtay laakiin markaa gudaha u gashid in lagu dhaho $7 waa waxyaabahaas waxaa la dhahaa click price aa la dhahaa waa dadkay kusoo jiitaan inay shabaq tusaale malaay markaa gaadaysid shabaqa loo dhigtaa moogtahay waxbaa waa loo qurqurxiyaa wuxuu jecel yaha loogu ridaa muhiimadda waxaa waaye shabaqaas inaad kusoo dhacdid mar walbana xayisiin ay kusoo daba dhigayaan oo meel walbaa tagtid alaabtaa ku daba taagan waan gartay waxaas waxaa la dhahaa click price laakiin qofka macmiilka markaa aragtid waa lala macaamilaa maxaa la discussion lala galaa waxbaa laga jegjegayaa marka kaas waxa waaye halkaas aan ugu tagaynaa click price aa la dhahaa wayna dhacdaa hadda alaabaha qaar hadda tusaale marka halkaa aa ku aragtid in qiimahooda uu yahay tusaale garantan camal qiimahi waxaa laga yaabaa $3 inuu yahay markaa gudaha u gashid aa ku dhufatidna $7 iyo meeraas ay ku dhahan waxbaas click price aa la dhahaa laakiin oo dalabkaaga markuu badan yahay waxaa laga yaabaa aa ku heshid lacag aad u jaban su-aasha kale ay weydiisay waxay ahayd okay marka su-aasha aha ma isagaan ku odhanayaa ninkaan ku odhanayaa ii soo dir baymentiga aan ku heshiinay warqada ku buuxbuuxo ha warqadda waxaa jirto
marka ay heshiisiin had tusaale hadda wuxuu ahaa $3 waay hadda 4.28 uu noqdo mujeedaa meeshan waa u jeedaa waa arkaya click price al dhahaa marka ay heshiisiin oo alaabtii iyo maxaa la dhahaa minimum order quantity waxaabas isku fahantiin waxaa dhahaysaa ii soo dir lacagta cadadeeda payment waxaa dhahaysaa ii sameey payment order ii sameey wuxuu ku soo abuuraa marka yani link tusaale hadda orderskayga haddaa tago orderskayga markaa tago isagu waa ku tusaaya yani wax oo live camal ku tusaaya ayaga lacagta ku soo diyaarinayo marka adiga dhow waxa u baahan tahay inaad bayna waa dhahdid automatic halkaas ay kaaga bixaysaa marka su'aashaada kale waxay ahayd payment systemka lacagta markaa bixiyo lacag kale oo dul saara waa ku soo saarmay waxaa laga yaabaa taas in qalad oo dhankooda ka dhaca ay tahay laakiin marka adiga fahansiisid oo aad dhahdid lacagtan alaabteeda markaa isku darsaday tiradaan ay ahayd lacagtan way kordhay ayaga ka saaraya marmarka qaar waxaa laga yaabaa inay ku xisaabiyaan lacag waxaa jirto kasoo qaad alaabta inay ayaga China kasoo qaadaan Soomaaliya ay keenaan marka waxaa laga yaabaa lacag $50 camal inay kg ku keenaan marka lacagtaas waxay noqonaysaa ay ku darsanayaan waxa u sheegaysaa qofka oo supplier-ka waxa dhaysaa aniga agentia China ii joogo alaabta ii soo qaaday ma u baahnid in lacagtaas ii xisaabsid marka lacagaha oo wuxuu ka jarayaa oo maxaa la shipping iyo waxaas lacagtaada caadiga ee ku noqonaysaa su'aasha xigta waxay ahayd sidee u dalban karaa sambal oo dharka iyo waxaas markaad dalbanaysid sida caadiga waxaaba kale u dalbanaysaa yani qofka supplier-ka waxa dhahaysaa waxay isticmaalaan catalog waxa la dhaho tusaale dharkan saa u jeedid oo markaa ku dhufatid waxaa dhahaysaa catalog ii soo dir catalog waxa ku jiro ama menu tusaale maqaayad markaad tagtid cuntada markaad dalbanaysid waxaa jira menu waxa la dhaho menugaas waxaa ku sawiran cuntadan pricekeedii waxaas Alibaba wuxuu leeyahay catalog waxa la dhaho qofka waxaa dhahaysaa catalog oo heli kartid oo dharkaaga ii soo dir meeshaas ka xulanaysaa dharkii iyo lacagtiisa ku qoran marka qaabkaas ayadana ugu dalbanaysaa waxyaabahan orderska marka la dhaho double pricing kana hora uga hadalnay oo click price ka camal la mid yahay aan dhahe maxaa la payment system ka kaga hadalnay agency addresska videogeeda diyaar waa caawa ama bari waa soo upload gareena halkaas kala soconaysaa automatic qofka supplier-ka waxa u diraysaa addresska ku soo diray ayaga Soomaali keenayo waana idin faahfaahin doonaa soo dheer yaa kale hadda oo asxaabta kamid ah oo su'aal qabo su'aasha hore ustaad agency ay jooga China aynu niri maxaa ku yiraahdaa lacagta lagu dhimayo ma fahmin in aad markaa ku xidho ba agency ku xidhay ku fahmin lacagta dulsaarka sida loo jarayo markaad ii sheegaysay dulsaarka double pricing waxa waay yani lacag waxay ku xisaabayaan oo shipping-ka tusaale alaabtay waxay rabaan Soomaaliya inay keenaan marka adiga waxaad dhahaysaa alaab Soomaaliya ii keeninaha waxa ay idinka iibsada bas ii xisaaba address iga saara dhahaysaa shipping-ka anaa samaysanayo shipping-ka markaa waa inaad qof kale iyo meel kale la maraa laba shipping aa jirto inaa fahantiin laba oo shipping aa jirto China alaabta dhexdeeda tusaale annaga alaabta meel aa geynaa meesha aa geynayno supplier-ka marka uu warshadiisa kasoo qaado China dhexdeeda annagana waxaa ku leenahay agency-gaas alaabta la geynaa alaabta marka agency-gaas la geeyo lacag yar ay ku jaajgareynayaan dadka shirkadaha qaarna free ku geynayaan marka ayaga intaas inaa kala fahantid muhiim waa markaas okay agency-ga ustaad ma ku xidhi kartaa ardayda waa ku xidhaynaa insha Allah anaan idin soo diraa groupka idin soo dhigi doona yaa kaloo su'aal qabo asxaabta taas videoga isaga waxaad tiri lacagta marka la bixinayo kaarka lagu bixinayaa laakiin kaarka waxaa ka horeeya waxba ka horeeya iyadana video baa idinku soo dirayaa baa tiri waa idin soo diraa waxaa ka waday addresska agency-ga ayadan insha Allah waa idin soo diraa ka cabsan videoda ku soo xigo asxaabta kala jaanisiina okay insha Allah labada video ay asxaabta kale yaa su'aal qabo ustaad waa maasan tahay waxa waaye magacaaga noogu bilow waana kaaga mahadcelinaynaa magacayga Cabdixakiim Maxamed Nuur waaye waxaan ka mid ah ardayda qaadata koorsada ma fahanti marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaan rabaa inaan noo faa'iideysid Cabdixakiim Muqdisho macno okay حمر عديها صح استاذ عارف inaan noo faa'iideysid waxaan moogtahay khibradda wax muhiim waa fahantay waata daatan aan hore u sheegay
waxaan rabaa inaa concept naga siisid alaabaha muhiimka ah oo in la keenay ku fiican tahay xamar oona socon karo alaabaha aan socon karin oo muhiim aan ahayn waxaan kaloo rabaa inaa concept yar naga siisid qaababka oo maxay ahayd alaabaha looga qaadayo maxay ahayd supplierka oo loo geenayo meesha inkastoo hadda ani concept fiican aan ka haysto oo maalin data kusoo weydiinaya mar alaabaha la qaadayo la geenayo meesha iyo agentiskii wixii aan ku weydiinayay marka ardayda kale inay faa'iidaystaan oo muhiim ah laakiin hadda ani agentiskii waa la xiriiray alaabada maalin laweyd iibsada loo qaaday qolada agentiga oo maxay ahayd oo shardi oo loo geeyay hadda laba alaab camal ay taal oo mar dhow inay soo qaadaan aan rajeynaya alaabtaas maalinkaas uu qaadaysidna inaa is aragno oo meesha aan wada tagna rajeyna insha allah aan dhowr alaab ay soo saato insha allah dalila marka concept yar alaabaha muhiimka oo in la gato ay fiican tahay ustaado waxaan maxay ahayd concept naga siis rabela iyo khibradda yar oo intaa suuqa ku dhex jirtay iyo waxyaabaha faa'iidooyinka leh iyo qaababkaas ina concept guud naga sarado maasan brother aada u mahadsan tahay alaabaha hadda cabdixakiin ugu fiican ee la iibsado oo suuqa leh waxa waaye number 1 horta markaa wax soo gadaysa laba qaaba loo fiiriyaa number 1 dad bakaara ama magaalada joogtay dad waxaa jooga wholesalers ah oo alaab keensado dadkaas inaad dhahdid okay jeena maxaa ka keensataa wax ka waran alaabtaas da aan ku keeno waxaa samayn kartaa kaliya ma ahin inaad diyaarad wax kiilaad ah keentid markabna waa soo rari kartaa idan insha Allah techniques waa idin la wadaagi doonaa laba qaab baa u shaqeysan kartaa qaab number 1 inaad alaabta aad keentid number 1 qaab alaabta inaad aad keentid number 2 inaad u keentid maxaa la dhahaa shirkadaha kale marka hadda waxa tusaale waxyaaba ugu muhiimsan waxyaaba daily life aad loo isticmaalo tusaale magaalada Muqdisho camal waxa bakaara tagnaa ayaan dhaxdaas waxa baareen waxyaaba loo baahan yahay dunta hadda aragteen oo dharka lagu tulo aad loogu baahan yahay waxa jira shirkado badan oo kala wareegay marka waxa jira product list aad diyaariyay oo insha Allah aydan dhahay challenge galeena challenge-gaas oo bilaabeena waxa idin soo dhigi doonaa groupka iyo website-ka dhexdiisa automatic xitaa waxa idin sheegi doonaa xilliye Alibaba waxa jirta alaabaha discount iyo coupon codes waxa la isticmaalo offer jiro offeradaas dhanna waa idin soo wadaagi doonaa hadda waxay ku jiraan fasaxay ku jiraan oo public holiday kooda ilaa 7 public holiday public holiday-gaas taa mar inay discount sameeyaan laga yaaba laga faa'iideysto hadda waxaa soo dhow Black Friday soo dhow waa xasna waa idin soo wadaagi doonaa insha Allah waxa Cabdixakiin yani waxa idin noqdo dhiirigelin alaabtiisi waa dalbaday mar dhowna way imaanaysaa waxaan rajeynaa alaabta markuu keeno hadda Cabdixakiin ma jira qofka supplierka sawiro alaabta uu kaaga soo qaaday oo group oo maxaa la uu ku soo diray markii oo packaging sawir iso direen packaging sawir iso diraan ku dhahay sawir iso direen markii packaging sameeyeen dan kadib ilaa iyo abku inta alaabta ka geenaysaan soo inform gareeyaan ku dhahay marka alaabta markii la geeyo oo loo geeyo warehouse la geeyo oo agentiga waa la saxiixaa fariinna way ku soo dhacay laakiin marka hore markii la saxiixay ka bacdi fariinta qolada ku soo dirayna oo agentiga marka ani ka hor intaan qoladan oo alaabta u dhiibin ka hor qola kaleeto oo aan qalaabo dhowna oo meesha joogaan oo agency ayagana ku leh u dhiibtay laakiin qolo oo waxa waaye container wax soo qaadamahan diyaaradda wax kuma soo qaadaan cargo ma waxooda marka ka bacdi qoladii waa ka soo wareejistay hadda qoladan wata maalmood adigu weydiinayo ku dhahay qolo oo diyaarad cargo ii sheegay ku dhahay marka kulay inay ardayda kala fahmaan markii markab lagu soo qaaday marka la say u kala waqti fiican tahay say u kala lacag badan tahay inay ogaan karaan because of kiilada la xisaabaa markii cargo ahaan loo soo qaaday kiilada la xisaabaa marka oo diyaaradda la isticmaalayo marka hadii adiga maxaa lahaa yani ardayda qaar waxa way aamusan yihiin hadii aa aamusid micnaheedu wax ma fahmayso hadii laakiin dadka su'aal aa weydiisid waxa laga yaabaa cilmi badan inaa faa'iidid marka waxaan rajaynayaa inaa wax badan faa'iidiin soo kale waxaa samayn doonaa yani xayeysiimo oo Facebook ads-kan iyo Instagram iyo Google ads soo kale YouTube xataa waa samayn doonaa productigi inaa live sales u sameeyno maxaa la dhahaa dad Soomaalida xayeysiin markay sameynayaan hadda waxay yaqaanaan bas bostigi inay kor tagaan boost dhahaan waxaas waa laga tagay waxaa la macaamili doonaa ad manager يعني إنا قف كأدي عرب تدي أدور بدي كرتي إنا تارجت كريسيد وحباس لنا إن شاء الله قيبها دم بقو أركضونا على عبيه نسيف عمر كنا وجود إمادان
marka ujeedada guud course waxaan rabnaa inay win-win ay noqoto qof walba oo guuleysto oo at least uu wax qabsan karo ama dadka kalena wax uu qaban karo fikir kale ustaad kugu darsan lahaa ayaa jiro hadday macquul tahay oo maxay ahayd koorsooyinka dambena aa uga faa'iidaysan kartid waxaa waaye badanaa e-commerce markii la maqlo ardayda badanaa waxay yaqaanaan in oo website haddii koo la dhisaayo iyo wax noocaas iyo koley hadda fikirkan calibaaba waa dad wax iska cusub waa marka kooraska kale oo aad duuli doontida doo jiro waxaan jeclaan inaad ku dartid in bilow starting qofki inuu sameeyo website soo usoo dhisi lahaay website markuu dhisadan ka bacdi looga soo sameyn lahaa Facebook page soo sameyn lahaa soocalkan adkii wixii uu sameyn lahaa dan ka bacdi in albaab markaas oo soo gaaro hadda waxaa dareemaa arday badan fahamkii inuu ku yar yahay oo wax badan isku xoogaa isku dhex darayaan marka taasaa fiicnaan lahayd mana maasanta ustaad fikir masha Allah waxaa arki doonaa website qaar hadda oo e-commerce-ga u dhisnay waxaa ka mid ah website-kan camal inaa ardayda ay dhisi karaan oo la sameyn karo waxaan rabay inaan kusoo daro course-kii hore laakiin xogaa waxaa igu batay cover maxaa la dhahaa course outline-kii waxyaabaha la cover gareynayo marka insha Allah next program waa update gareynaynaa insha Allah versions cusub soo socdo waxyaabo kale oo dheeri ah soo socdo xitaa in maxaa la dhahaa Alibaba alaab aad ka iibisid Amazon aad ku iibisid ama Amazon FBA waxyaabahaas wax loo yaqaano wax badan aan soo kordhin doonaa laakiin step by step website-kan wuxuu kamid yahay website-yada anaga aan sameynay oo e-commerce-gii waxyaabahaas loo isticmaalo qofkii rabo inuu website-yada noocan oo dhiso asna insha Allah mar dhow bilaabi doono alaabaa China laga keenay website-kan la geliyay waa arki doonaa sida loo dhiso template-yadii wax walbana waan heli doonaa laakiin insha Allah next class noqon doonaa haddii asxaabta kale qof su'aal uu qabo iyo wax caqabad oo hortaagan ay jiraan waa kasii jawaabeynaa ustaadu waxaa jiro ii sheeg maxaa la lahaa Facebook adska la sameynayo ii sheeg ma waxna waa isku daydayo ii sheeg maxaa la lahaa inkastoo aana weli ad oo ii sheeg oo saxa aana kicinin ii sheeg laakiin waxaa conversion haddoo kale adiga cashirka hadda kuma jirin ma fahanta conversionka xayeysiinta ugu fiican waaye waxaan loo isticmaalaa hadda e-commerce-ga marka la joogo aad loo isticmaalaa conversionki cataloga inaa kusoo daraa umaleeye yani laakiin waxaa muhiim ah qofka inuu leeyahay shop Facebook shop wax lo qofka website leh oo kala isticmaali karaa Facebook shop qof website leh iyo xitaa waxaa isticmaali karo Facebook maxaa la dhahaa qoladaan la dhahaayo Facebook waxay leeyihiin shop wax lo waa ii samaysan yani waa shopka oo productyada aad kusoo diraysa haddii aad leedahay maxaa la dhahaa waa isticmaali kartaa asna hadda Facebook ma noo kacsano laakiin hadduu kacsanaa lahaa waa idin tusi lahay muhiim waa conversionka ayadana video fiican aa ka sameynaya iyo catalog saleska waxyaabahan la dhaho conversionka lead generationka maxaa la dhahaa trafficga waxyaabahaas dhan muhiim waa saleska loo isticmaalaa ustaadow su'aalaan rabin aan ku weydiiyo Facebook shopkan aniga muddo ka hor mar aan arkay waarab runtii inaan su'aal kaa weydiiyo xogaa waa iska mashquula marka Facebook shopka oo ay soo kordhiyeen qoladan Facebooka oo versionada cusuba marka ma la samayn karaa asiga dhexdiisa in wax lagu dhex iibiyo aad asiga dhexdiisa aad ku dhex iibiso aad u baahan xataa website oo ma jirta hab noocaas oo website dhan u baahan Facebook shop marka isticmaalaysid yani wixii alaabtii sida store camal qaabka camal kugu soo bandhigaa ad website ima furno taali waxa iibinaysid qaabkan iskii lacagta ku qoran bacaadi u soo bandhigaa xitaa waxa u samayn kartaa waxa iibinaysid dharmiya maxaa la kaba qofka marka tigriya u samayn kartaa سؤال مر إذا تساعد. أوكي. مرة قفكوا. أي.
عملنا فرتن كين دقيقة ودو يهي ياكلوا سؤال قبل انت او ودو يا aan raacsado mid xita xogaa dadka mobilada u badan yihiin mobilka qofku markuu isticmaalayo aad supplierka ama aad adiga afiir aragtid inaad lacagtii ogaatid kan uu qiimaha yar camal midka uu response saarayo xogaa waa clear waa loo jeedaa marka codkaas haddii markii supplierka wax laga dalbanayo sidoo markii supplierka wax laga dalbanayo oo mobilka looga dalbanayo sida kuwa uu response-ka fiican oo kale kuwa oo uu lacag yar oo kale marka raadinaysid sidoo kale marka mobilka markuu soo saaraya meesha taas haddii qaabkaas mobil ahaan lagu soo duubi karo insha Allah caawa qorsheynaya inaa fiidiyoyada mobilkaba sida Alibaba loo isticmaalo soo gilgiliyo xogaa cilada jirta xitaa mobilka computer oo maaga isticmaala marka computerkan kala caaw soo helay marka inaa shaashada duubo anoo Android isticmaalaya caqabada igu noqoto laakiin hadda waa idin soo duuba 10 fiican ku sameeyna insha Allah صح كيات سأوجدين شوب كمرك لقى هذا أو فيسبوك أكنا أدي لا يلا مركا جانس شو هالكاس كفيديو أو موبايل كسر استعماله إن شاء الله شوب ماشي أستطيع سامو وعليه سا شوب مركو جينا لكن نمبر 1 أسوسيت أبجريسد واي أو سو أبورتد سألت سأوجدين قاب كان أوجلين كرتا برودكت دوي هاي برودكت مجيسي نمبر كيسي أنا وقف كمركا هل كانوا كيبسن كرا website kaaga ku link gareyn kartaa WhatsApp kaaga ku xiri kartaa marka Facebook shop ka qaabkaan u shaqeynaa waa sidii marka aan website ku xiran caadi qofka ugu iibsan kara meesha dhexdeeda Soomaa uu ka iibsan karaa payment ku sameyn karaa hadii oo click ku dhaho wuxuu arkaa price-kii information-kiisi xogtiisi sawiradii waxa okay waa insha Allah idan marka yaa kaloo su'aal kale waxaan ku weydiin lahaa haddii la idan hal video noo soo sameey aniga abaha la cashay maamar abaha la aniga maam waa hurmay maxaad ila qabnay adiga kula cunay bali madna iska daa assalaamu calaykum ya codka تسوق خمسة حتى تشوفي نسي بالتاسي الله بس انت يقدر مرة بين يقدر كحنوني بدي يقدر مرة بين يقدر والله يقول هذني